jaaliyadda Soomaalida ee degan waddankan Britain ayaa shalay kulan kula yeeshay safaaradda waddanka Turkiga ee magaalada London Danjira Unal Safilkas oo ah safiirka u fadhiya waddankan Britain dalkaasi Turkiga. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ee qurbaha ayay ahmiyadiisu ahayd in ay jaaliyaddu uga mahadnaqdo dowladda Turkiga booqashadii taariikhiga ahayd ee 19kii bishii August uu ra'iisul wasaaraha waddankaasi Turkiga Tayyip Erdogan wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi oo ay weheliyaan qoysaskooda iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda waddankaasi ay ku tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. safarkaasi oo indhaha u furay beesha caalamka gaar ahaan hogaamiyaasha wadamada muslimiinta ayaa Danjira Unal Safilkas oo la hadlaya mas'uuliyiintii uu ka qaabilay xafiiskiisa ku dheeraaday taariikhiga qadiimiga ah ee ay dowladda Turkiga u lahayd dadka Soomaaliyeed isagoo oo ka hadlay xilligii uu Axmed Guray u dagaalamayay xornimada waddanka Soomaaliya sheegana in dowladdiisu gacan weyn ka siiyeen halgankii shacabka Soomaalidu kula jirtay gumaysiga reer Yurub. hadalladii Danjiraha waxa ka mid ahaa kardeş Somali halkına Türkiye'nin elini uzatması fevkalade doğal görülmeli. Çünkü biz kardeşlerimizin acı içinde ve ızdırap içinde yaşamasına razı olmayan bir milletiz. mid kuwaad waxaan idhahaynaa waxaa waaye Turkida dowladeeda inay walaalaheeda Soomaali inay gacan u fidiso wax oo waxaan u aragnaa caadi ah laana Turkiya weligeedba kuma fiirsanayso walaalaheeda oo dhibaato ku jiraan inay dhibaatadaas ku sii jiraan. أنا كمان تنو إماتين أنا صفير أي ودن كان أنا مهتسنة تراهين مانتا تراهين آدي آدان عن ومهتسنتين مانتا وحاو إنا ولا ليه الصومالي ذا ماشان للجوب أنا عوض مانتا لهاد لويو آدان وفرح سنة هاي وحنا رجينا يا رباطة ده هاي سئيو قربة ده هاي سئينا كبح الصومالي هذا Danjira Unal Safilkas ayaa sheegay in ay dowladdiisu ka shaqaynayso qorshe ay doonayso sidii ay beesha caalamka u samayn lahayd qorshe lagu soo afjarayo dagaalada 20kii sannadood ee u dambeeyay aafeeyay waddankaasi Soomaaliya. sidoo kale waxa uu mahadnaqay jaaliyadda Soomaalida ee degan waddankan Ingiriiska isagoo ka gudoomay jaaliyadda Soomaalida shahaado sharafkii. waxa uu sheegay inuu si kal iyo laab ah ay ku dheehan tahay walaaltimo iyo muslimnimo uu ku gudoomay shahaadadaasi. So to give that, I would like to give to our oldest ambassador to hand it to the ambassador. This is for you to hand it to him. sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee UK mudane Maxamed Ismaaciil Atoore ayaa uga mahadnaqay hiilka waxtarka iyo walaaltinimada ay dowladda Turkiga u muujisay shacabka iyo dowladda Soomaaliya xilli ay dalka iyo dadkuba ku sugan yihiin xaalado abaara ah iyo waliba colaado joogto ah oo muddo socday. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil Home Cable TV London.